haddii gobolka banaadir uu ka maqan yahay tamthiilkiisa waxaan qabaa inay meeshaasi ay tahay meel nuqsaan weyn ay ku jirto waxaan la cuni karin oo la qaadan karinna ay tahay marka odayaasha meesha jooga inay ka hadlaan oo ay ka hadlaan arrintaas ku doodaan ay u suubiyaan ijraa'aad kasta oo macquul u ah sida Somalilandba loogu suubiyo special status in 13 xildhibaan oo golaha shacabku ansixiyay ay ka doodaan statuska loo suubi karaan ay ka doodaan waan qabaa waana ku boorinaa waana ka codsanaynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo subxaanahu wa tacaala midda kale doorashada ku saabsan warqadaas maanta aan soo saarnay shirkeena jaraa'idba waxay naga tahay digniin iyo waa wareey meesha Soomaali dhihi jirto kale ah xaalka oo ku socdo waddanka oo madaxweyne farmaajo sida uu sheegay madaxweyne xasan sheekh maalintii uu yimid ilaa yoomina hada inuu dastuurka iska xooray oo dastuurna waxba ka rabin sharcina waxba ka rabin wuxuu shaqo ku leeyahay aysan jirin haddii marka asaga uu saas yeelo ummadda kale haddii ay ku daysato oo sharciga iska xoorto oo nin walba jidka soo istaago ha ogaado eedeeda inuu asaga qaadanayo burbur kasta oo Soomaali ku yimaado inuu asaga qaadanayo biidnillaahi tacaala man u yeereyno mana rabno laakiin dhaqanka uu ku socdo madaxweyne farmaajo oo laga soo bilaabo maalintuu gudoomiye Jawaari uu kala dagaalo ka buriyay baarlamaanka si uu waliba aan sharci ahayn iyo sida hadda ra'iisul wasaarihi hadda ma aragtay ugu dambeeyay sida qaabdarrada ahayd oo ay buuday iyo mursal ay uga wareejiyeen oo ay ma aragtay si aan sharci ahayn process ahayn nidaam la soo maray ay ku wada suubiyeen waxaan qabaa haddana uu ku socdo sida la sheegay ma aragtay xukuumad oo asagaba yiri ha baxdo oo islaan la furay camal ah inuu rabo waaga inuu ka ilmo dhalo waxaan rabaa qaaligiisa muuday inuu raadsho sharci oo uga ilmo dhali karo ama wax uga keeni karo haddii ilaahay yaraado arrintaasi arrin Soomaali aqbali doontana ma ahan 25 Juulaay wixii ka dambeeyay sharci kasto iyo qaanuun kasto iyo nidaam kasto oo xukuumaddaasi ay meel mariso waxaan u aragnaa inuu sharci darro yahay qof Soomaali ah oo lagu qaadi karo ama lagu hogaami karo amaba ay waajib ku tahay heshiis kasto ay soo saxiixaan xukuumadda noocaas ama ay keento oo beenan ay ku tahay habeeraatee ma jirto waxaan rabnaa madaxweyne farmaajo dastuurka inuu dhowro sharciga inuu ilaalisho haddii sharciga uu sidoo maanta ugu tumay u sii socotana ha ogaado Soomaalida waxa uu maalinta ugu dambayso oo waqtigiisa ku eegay wixii ka dambeeyo inuuna madaxweyne u ahayn sharcina ahayn qofkii markaasi ama uu ka xoog badan yahay ama uu qaanuun uu ku haysto ay jirto u talin doonaa uma talin doono Soomaali haddii ilaahay raad haddii kale waa inuu hadda ka shaqeeyaa sidii doorasho nadiif ay ku dhici lahayd oo si nabad ugu wareejin lahaa xukunka dadki waqtiga sida hadda la sheegay 15 Oktoobar ugu horeeyay xildhibaan la soo doorto xataa haddaan aragno waqtigaas inuusan diyaarinaynin annaga waxaan bilaabi doonaa process oo parallel ah oo Soomaali dawlad loogu dhisi doono haddii ilaahay yiraahdo sida adduunka maanta uga socoto dham oo kale in anagan aan suubin doono oo aan ku fiirsan doonin madaxweyne farmaajo iyo tiimka la joogo in waddankan ay dawlad la'aan dhigaan oo ay burbur geliyaan wax la aqbali doono maaha bayaankeena digniin noocaas waay dadku ninkii fahmi lahaa iyo ninkii aan fahmi lahaynba qof walba Soomaali waa ku sheegnay wax garad ah indhagarada culimo ah arrintaas in loo istaagal raba internationalka oo Soomaaliya gargaaro ama kaalmeey baartina la arag waa inay arkaan arrinta iyada ah qof haba yaraatee farmaajo uu la sii joogi doono madaxweyne farmaajo iyo tiimkiisa oo ay dhihi doonaan dawladda idinahay ma jirto haddii uuna diyaarin sharciga doorashada lagu qaban lahaa boroseskiisa la mid ahan aa lagu dhinac suubina haddii ilaahay yaraado waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu